السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله قاليا وان دوهي والله كاربني magacaagu saddexan saaxiibkay kuleeto magacayga Liiba Maxamed Yaasiin magacayga saddexan laakiin baa qulub way dadkii yaqaaniin waxa wadne barnaamij may waa maasantahay maadaama oo tiri barnaamijka wada baa qulub igala qayb gal waa maasantahay oo kala qayb galay walaalkay barnaamijka awadnay waxa waaye maqasho la Samar Style maxana Samar Style uu maqasho Samar Style ee kala fasiray Samara gabar oo gool u shaqayn jirto oo hadda u shaqaysa astaani waa jiraan macnaha Samar Style gabar yar oo waxa u maleynaa misgal mudug sheeganaysa boqorada galmudug qaftu hada artsayilid Samar Style ma ka hadlay hada artsayilid hayla waa falantaabay qof dhan oo dhahayo ana adduunku ugu qurux badna xagee lagu arkaa horta mid kale orgiga ka qurux badan xasaayilahay lan loo dhaasha dhawilahay quruxda ay sheegtay xaa ka jira aslaan subhanallah ma aqaan maraayada isku fiirsan maraayada jaban isku fiirsan umaleyna marka mid kale ma aqaan maamay carab oo beena jirto man sharafna soofo shariifun macnaa qof naftiis amaana macnaa naftiis hormar amal ma qashin fahanti qaabka loo amaana laakiin ma isfahansano laakiin waxa leeyahay waxaas ka waanto ma fahanti lacal hada aragto maxaa ku sameeyay maxaa dhahday lacal hada aragto maxaa ku sameeyay Samaray fiicantahay walaal soo dhaw ana jifismiya jifisa ku maqlaayay soo dhaw horta saaxiibkii saa u sheegtay ani mar labaad mar saddexaad waa dhawahay Samar wadanka ku soo dhaw cod ka xigta malaha anaga qof kaliya boqorada ah heesanaa tahay aniga gabadha Soomaaliya u tartanta ilaa aftaada waa galisay marka aragto ma isbedesho macnaha si u galay aniga qofka albaab miya marka galay yani albaab miya marka galay macnaha Samarada kale waxa isku qaldamay magacyada isku qaldamay laakiin Samara waxa ilaadan Samaradu oo yadii Talyaani kulmiis ma ilaahay waa fahmi lahayn ma fahanto had Samarooyin mid waxa jirta astaan u shaqeyso mid kala jirto laakiin aniga gabadha ma jafeen been ay sheegin wari ina jifis inta ka maqlaayay dim ma laha laakiin way dhacdaa tan oo kale magaalada isku dhawaan tahay ma fahanto horta walaasha qaaliga Samara waxa la yiri markaas qofka walaalka adoo gadaal ka raaci kara hortiis lama yimaado ma fahanto horta marka adoo gadaal ka raaci kara hortiis maxaa ku keenay walaalka gadaal ka raaci faawla ku gal jaala leeysiin ma fahanto walaasha qaaliga intaasna waan kaaga mahad celinayna وانا كان لقلنا والله شيء غالي maxaa ku raali gelinay والله أرجينا والله هذا أرجي سيلا ما فهمت أرت كنترول كجوار وجوها هذا هو في صومال قليل ورا الله إكسكيوزمي معنا في إنجليز جبنا إنجليز يجي عشان إكسكيوزمي والله شيء غالي ما يصير ورالي وكا أجي على خفك عنا خف أنجي على ما فهمت أرت خفك أمانة خفك أنا عباوي معنا ما دام عيو أجي على معناه سكل وفصر ما سنت صاحبك برنامج قاعد تروح ويدينا إيش كذا لا أدم شغل اسمه لا وريه وايق أنت ما فهمت سامح كبدل هذه هنا إن ترى حالها ودنك وحكي ويدينا يبروني ماشوا مراي Samar Style hadana ay soo dhax dhigtid waa ka xumaa laakiin dhimo way ku qaatay Samaro marka aragta ku marsoon waxa ku diiyay gabadhaas ma taqaana waana jifta saab igu qaad Samar walaashida qaaliga waan maasantii barnaamijka aan bilawnay waa barnaamij soconayo ilaa waxa ka soo sameeynay 10 qof oo caana ma fahantay idada caanahin intaba barnaamijku harmano noqdo barnaamij tixana marka asxaabta dadka aragtiin inaan soo hormarno commentiga nagu soo qora